يجيو ومدى الصومالية قفك من إنه سقيل قبيل إنه سنين قنبه يا إنه ضعيف من أقوى سنوراله تشيشيا ورشاي وكاسوها مبادئ العيش أسعى مركي أنا في أريد وضعك يجي هو أي وضعك يجي ولا مقبحي ودوننا أنقول هاي هل تاكو ملكي يعني كمري باص كمري وجرو كمري وحول مري محايا أنت كتبي ما شاء الله أنا markii aan arkay dawladda Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay kaalka ayaa laga qabtay saddex habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaana la ila dhaqmay waa la iga soo qaaday muqdisho la keenay waxa la ila dhaqmay si fool xun oo ihaana la ila dhaqmay markii aan arkay iyadoo si galay gardo duubay oo indhaha la iga xiray anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iga cadaysisay markii aan arkay in markaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda ruuxiga maahan bay dhamaynahay waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawirka laga qaadanayo isla markiiba diyaaradda lagu celiyay markii la geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumay oo goday joogta laanta markay ugu duqabsadeen aflagaado markay iimiseen say caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xiran oo cagaha ka xiran oo indhaha ka xiran oo gacmaha ka xiran waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dal lahayn waxaan arkay oo lisii arxamay waxay iga bacday arrintaasi waa murugo aad waxaan ku barahay waxay iga bacday markii aan arkay oo ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fawshan hal mar wada dhaqaajiyay oo hiil iyo hool ila garab taagay arrintaasi iga bacday runtii waxa ay muuqatay inaan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan